qabanay waxaan rabnaa inaan maanta waxaan idinku yeernay maadaama aad tihiin maamooyin danyar ah kuwaasoo caruurtooda u baahan tahay inay ka daba tagaan caruurta ku sugan daafaha caalamka khaasatan magaalada muqdisho waxaan rabnaa maanta inaan daahfurno xafadeenii aas xaafuray maama Naciimo Maxamuud taasoo ugu tala gashay inay caruurta agoonta ah ay ugu tala gasho yacni in ay bayska aas-aaska nolosha aysan ka dhicin ay la mid noqdaan caruurta ay dhaleen dadka taajiriinta ah sababtaa maxaa yeelay canuga haddii uu leeyahay quality uusan haysan qof waxbarashadiisa kor u soo qaado biri meeshii uu weligiis taagnaanaya laakiin haddii uu helo qof saacido wuxuu helayaa saacidaad ku filan iyo waxbarasho fuula maama Naciimo aad ugu mahad celinaynaa tan kale deeto ururka Sadaqa Jaariya qaasatan iskuulka waxaa dhisay ururka Sadaqa Jaariya qaybtiisa dhafiiqa ah waxaa gudoomiye u ah Mahad Nuur Jeelani kaasoo ah maamulka iskuulkan oo loogu talagalay inuu ka noqdo maamule kaasoo u dhabar adeegay inuu isugu keeno dhammaan inta yacni agoonta ah ee xaafadaha ama yacni degmada Wadajir waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu noqdo iskuulkii koowaad ee ururka Sadaqa Jaariya magacayga waa Jiraano waxaan ahay gudoomiyaha ururka Sadaqa Jaariya ee qaybta fiiqista iskuulkan oo jeedaan sidoo xiriiriyaha idin sheegay walaalkay Khaliif waxaa asaasay ama fikradii maskaxdii keenay maama Naciimo waxaa ku taageertay garab siisay gudoomiyaha ururka Sadaqa Jaariya maama Sahra maama Naciimo iyo maama Sahra ajri xasanaad ilaahay ka siiyay iyo maqlaayaan baan daawan doona TV-na waa joogaa universal aad ugu mahadcelina ururka Sadaqa Jaariya waxay sameeyaan ceelal la qodaan masaajidada dhisaan dugsiyo dhisaan iskuulka waxaa loo furay dad agoon iyo dad danyar ah inay ka faa'iidaystaan dad agoon aan lacag iska bixi karin iyo dad danyar aan lacag iska bixi karin maama Naciimo iyo maama Sahra waxay u istaageen dadkaas inay taakulayaan waxa ay sameeyaan dad masaakiin ah oo aan waxba haysanin ee bilsiyaantina malina marka iskuulku wuxuu bixi doonaa waa madraso wuxuu leeyahay dugsi iyo iskuul oo kala bixi doona iskuulku waxa la bari doonaa xifdida quraanka waxa la wixii aad diinta soo galaan waa la bari doonaa insha Allah waxa la isku dhahay diin maadi marka oo soo laano Soomaaliga xisaabta Carabiga Ingiriiska waa la bari doonaa insha Allah waxaan mahad celinayaa ururka Sadaqa Jaariya hooyooyinka soo qalqaayay macallimiinta maamulayaasha mahad gaar ah u celinayaa haddii aad ku rooyahay waxaan ka ku soo dhaweynayaa maamooyinka ciyaalka waxaan marka aan rabaa inaan ka hadlo inuu ku sii dheeraado ma rabo anuu meel u socdaa dhalinyartii soo qabatay waxaan maamooyinka kula hadlaa oon ku gobaabinayaa hawshaas sharafta leh oo meeshoodii loogu keenay inay ka qayb qaataan oo aduu haddii aad ku rooyahay yani waxa waaye ninkii meeshaadi kuugu keenay inay ciyaalkaadu wax bartaan aad iyo aad aan ugu mahad celinaa dadka aan dhammaan tahay ugu mahad celino adinkani ciyaalkiina ku kontaroolo waxbarashada sababtoo ay tahay waxa waaye yani Soomaalida hadda goor waxay ku maamaato qoftii intay yar tahay yani maskaxda aan ka dhididin hadhow dhabarkii ka dhididaa marka waxaan ku soo dhaweynayaa haddii alla ku rooyahay arrintaas hooyooyinka isku xiqaamay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin haddii alla ku rooyahay oo ummadda Soomaaliyeed dadkaas agoonta oo maatada oo yani haddii alla ku rooyahay dhibaatada fahansatay inay wax bartaan oo ummadda Soomaaliyeed ka dabageeyaan oo kala qayb qaataan yani haddii alla ku rooyahay ku fikiray aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa dad wadaniya oo Soomaaliya oo yani haddii alla ku rooyahay oo aad iyo aad in loogu mahadnaqa fiican assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaariya iskuulka ay fureen waxay sameeyeen waxay bixiyeen 3 kitaab hadee 3 buug iyo hal kitaab iyo hal qalin bacdan waxa caadi oo soo qaadan doona markii iskuulka imaanayeen insha Allah waxa gabadha marka soo qiidiraysa waxa laga rabaa nadaafadeeda kulli iyo waqtigeeda inay ilaaliso insha Allah gacan sawir